بسم الله الرحمن الرحيم ولوه وانا كما سنتين ديبك وانا سلام يا قولنا بعض الصحافه التي في بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد بعدنا الصحافه دي ومد الصوماليه دي دغيسنسبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد وحويا مدة يمكن لو بلود كله دو waxaan joogay qaaradda North America magaalooyin badan baan ka maray hadii alla ku soo ogolyahay Mareykanka iyo Canada ba socdaal dhowr waji ama dhowr arrimood dibadkeeda leeyahay aan uga jeeday ayuu ahaa tagaar ahaaneed waxa weeyaan koobaad hadii alla ku soo ogolyahay bulshooyinka Khaatume North America degan dibadkeeda leeyahay muxuu ahaa inaan uga warbixiyo dalkii dibadkeeda leeyahay waxa ka jiray muxuu ahaa sidii halkan ay imika joogto hawlaha Khaatume ay hore uga sii mari lahaayeen aan ka wada tashano taxigtay waxa weeyaan hadii alla ku soo ogolyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan laba arrimoodba in aan maxay ku baraarujiyo hawsha halganka Khaatume muxuu ahaa ay ku jirtaan mid ay kaligeed leedahay ma waa mid Soomaali ay la leedahay oo aad moodo Soomaaliya inay ku ilowday oo maxay ahayd ayaan kala shaqeynaynin marka Soomaali inaanu weydiino hadii alla ku soo ogolyahay ku baraarujino war midnimada Soomaaliyeed iyo qaranimada Soomaaliyeed jiritaankeeda weeye waxa Khaatume loo leenayaa maxay ahayd dhibta badan loogu hayaa Soomaaliya waxa kan hadaynu wada leenahay inuu ka wada shaqeyno haddii muxuu ahaa hadii bidkeeda leeyahay waxaan laga nagu eegtaanay waxa ka badheedeen oo ha sheegeen qodobka saddexaad socdaalkaygu isna ku saabsanaa waxa weeyaan haddii ilaah ku soo ogolyahay waynu ognahay maxay ahayd nusqarnaba imika intii dawladda Soomaaliyeed ay jirtay ka dambeysay burbur fara badan iyo dhibaato fara badan iyo qax fara badan iyo dil iyo dhac iyo maxay ahayd xasuuq fara badan baa dhacay ama dhexdeena ha ahaato ama hadii bidkeeda leeyahay mid caalamkuba uu inala wadaago ha ahaatee hadii alla ku soo ogolyahay waxay ahayd in laga soo qabto marka bulshada tan maxay ahayd Soomaaliyeed qurba joogta ah jaaniska u helay in iyaga maxay ahayd nolol habaysan ay helaan caruurtoodii wax u barato iyagu shaqeeyaan hadii alla ku soo ogolyahay waxa muuqatay oo soo baxday kaalinkii ay ku lahaayeen dibu soo noqoshadii qarannimadii Soomaaliyeed iyo xasiloonidii iyo inayan mugii iyo qaybtii ay ku lahaayeen ay ka qayb qaadan balse xaqiiqadii ka qayb qaadashay iska daayay aad moodaba inay waxa ay Soomaaliya la degi laadahay ay qayb weyn ay ka yihiin marka baltaa inaanu hadii bidkeeda leeyahay bulshooyinka Soomaaliyeed meelaha aan marayo oo dhan aanu ka wada doodno oo ka wada munaaqashoono ayuu ku saabsanaa socdaalkaygu waxa iga qabsoomay shirar badan baan la yeeshay hadii bidkeeda leeyahay reer Khaatume haddaan marka hore gaar u soo qaado ama ha ahaato shirar aanu kulamo maxay ahayd toos oo face to face isu wareysanay ha ahaato hadii bidkeeda leeyahay magaalooyinka aan tagay jaaliyadaha Khaatume ee jooga maxay ahayd gudiyadooda oo aanu ka wada hadlaynay hadii ay jiraan iyagana gaar u shirinay ha ahaato hadii alla ku soo ogolyahay teleconference aanu isugu imaanay waxa iga qabsoomay waxa weeye hadii bidkeeda leeyahay warbixinna waa ka bixiyay oo waa markii ugu horeysay intii ay Khaatume asaasantay hadii bidkeeda leeyahay madaxda sare ee Khaatume intay timaado oo Yurub iyo u soo ambabaxdo ama North America baa ilaahay Yurub sanadkii hore maraan in yar joogay way jirtay face to face aan isu wareysano waa laga warayaayo hadii bidkeeda leeyahay inkastoo caalamku de global village iska noqday oo internet iyo muxuu ahaa telefoon iyo cid waliba ay war badan hayso bisana wararku inta badan warar badan oo khaldan aan la filter gareyn baa jira marka Charles waxay jaaliyada North America degan ay maxay aanu siinay baleen xaqaayiqi saddexdii sanadood u dambeysay Khaatume ay jirtay iyo imika halkay wax marayaan aan muxuu ahaa hadii bidkeeda leeyahay aan uga warramo su'aalaha ay qabaan oo fara badan aan uga jawaabo hadii alla ku soo ogolyahay wixii aan maxay ahayd sidii ay Khaatume halka kan uga horumari lahayd hadii bidkeeda leeyahay aan maxay ahayd ana gudaha ka imi baahidu sida ay kala tahay oo ka warqaba hadii alla ku soo ogolyahay aanu iska wareysano
dibkeeda leeyahay waxaa maxay ahaaytay kulamadan wax badan baa ka soo baxayo dibkeeda leeyahay meelaha aan guddiga ka jirinoo guddiga laga abaabulo in haddii bidkeeda leeyahay dib loo maxay ahaaytay cusboonaysiiyo geediga kan iyo halganka kan maxay ahaaytay loogu jiro muxuu ahaa xoreynta deegaanka iyo maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay adkaynta dowladnimada khaatumaba wax badan baanu isku afgaranay wax badanoo dadku ay su-aal qabeen baanu maxay ahayd ka jaahil bixinay wax badanoo haddii alla kuusama ogol yahay afkaaruhu ama iyagoo ay hayeen ama inagaan wadno isla meel dhignay way jirtaa nasiib wanaag waxaa aanu ku kulannay isagana halka kan madaxweynaha dowlad goboleedka khaatumo professor cali khaliif inkastoo joogitaankiisa uu brief ahayo uu gaabnaa laakiin maxay ahayd haddii alla kuusaba ogol yahay muxuu ahaa wax badan bay ka qaadatay joogista aanu isugu wada nimi halka kan muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay dadka aanu ku baraarujinay sidii halka kan iminka ay joogto waxa looga bilaabi lahaa looga dhaqaajin lahaa maxay ahaydtay markii doorashadu ay dhacday ee xilka aan wareejiyey qoladayadii hore iskamaana soo dhaqaaqin muxuu ahaa waxaanu bil iyo siyaadaba waanu sii joognay meesha oo inaanu haddii bidka leeyahay maamulka cusub democratic processka ku yimid markii hore annaga waa nala magacaabay iyaga laba magacaabin haddii bidkeeda leeyahay cod bay maxay ahayd oo marxaladda hore ee magacaabistii ku meelgaarka watii laga soo gudbay rasmiga loo gudbay inaanu haddii bidkeeda leeyahay kasii tala bixino haddii bidkeeda leeyahay ama khaladaadkii intii hore samaysmay ha ahaadeen sidai ay uga baydhi lahaayeen ama maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay sida ay noogu muuqatay laftiga inaanu kasii tala bixino meelaha maxay ahayd siiba dhinaca xoreynta haddii alla kuusama ogol yahay deegaanada la haysto ugu habboon ay wax ku fuli lahaayeen inaanu kala talino muxuu ahaa intii ay xilka la wareegeenna howlo fara badan bay qabteen oo dee waad ogtahayo barnaamijkooda intiisa badan 4 qodob ku salaysan yahay ta koobaad ta ugu horeysa oo ah xoreynta oo in deegaanada maqan la xoreeyo ah ta labaad oo ah in haddii alla kuusama ogol yahay maamulka khaatumo lagu fidiyo deegaanka khaatumo ay ka taliso oo dhan oo maamul shaqaynaya oo booliskii iyo golayaashii deegaanka leh waad ogeydo annagu berigii hore waa isku daynay meelaha qaarna way ka hirgashay meelaha qaarna kamayan hirgelin waatan weli ka shaqaysa buuhoodle laakiin systemka kan berigii hore meelaha qaar waxaanu ka samayn jiray dc muxuu ahaa meeyar magaalaanu ka samayn jiray waxaase muuqata markaad eegto buuhoodle oo kale keedii siduu u shaqeeyey inay ka wanaagsan tahay meeyar meel loo magacaabo in golo degaan in la magacaabo oo wada shaqeynayo hodadoo degmadaasi iyo tuulooyinka hoos yimaada oo dhan haddii bidkeliya ay represented ku yihiin in muxuu ahaa taasina iyaguna waa barnaamijkooda labaad maamulku uu ku fido oo ka shaqeeyo maaha keliya ku fido ee ka shaqeeyo oo cashuur lasoo saaro oo booliska haddii bidka leeyahay iyo degmada gudaheeda la gesho qaybta labaad oo ah in haddii bidkeeda leeyahay beelaha khaatumo dhexdooda haddii bidkeeda leeyahay laga raadiyo maxay ahayd haddii madmadow jiraba in laga raadiyo muxuu ahaa midnimo laga raadiyo wixii ama ra'yi laysku khilaafsan yahay ama wax kale laysku khilaafsan yahay haddii bidkeeda leeyahay maxay ahayd loogu baaqo in laysugu yimaado la wada hadlo iyo qodobka saddexaad oo ah maxay ahayd political offensive laftigiisu ama dowlad goboleedyada kale muxuu ahaa ama dowladda federaalka ama international community-ga haddii bidkeeda leeyahay khaatumo iyo hawsheeda iyo mabda-eeda sidii looga dhaadhicin lahaayo dowlad goboleedyada kalena waxaa weeye hawsha khaatumo haysa sidaan markii horeba sheegayba haddii bidkeeda waa hawl ka dhaxaysa oo soomaalinimo jiritaankeeda weeyaan marka dowlad goboleedyada kale waxay kaga qayb qaadanayaanba inay kaga qayb qaataan iyo dowladda federaalkiiba haddii bidkeeda leeyahay xamar waxaa lagu joogaa soomaaliya magaceeda lagu sheeganaya waxaa weeye inta haddii bidkeeda leeyahay halgankan iyo gobonimada tan maxay ahayd ay reer khaatumo hayaane loo leynayo ee caruurtooda loogu iskuulla diidaye wixii la doonaba loogu sameynayo dhac iyo kufsi iyo dhulbooba waxaa kan haddii bidkeeda leeyahay qaniimada dhulka ku jirta waa tii soomaaliyeed weeyaane loo soo dhiila dhaansanayo ee maxay ahayd shirkado ajnabiga inta lala soo heshiiyey laleeyahay aanu dhurano anagu keligayo waa tii soomaaliya ka dhexaysa haddaan la wada difaacin oo soomaaliya ka qayb qaadan especially dowladda federaalki maxay ahayd dowrka ay ku leedahay ayaan hawsha tan ka qaadan dee waxbaa halkaa ka fashilmaya oo ka xumaanaya
marka maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay wax badan bay uga dhaqaaqay iyaga oo u qabtay waase dee waa xilli yar oo kooban iminka waa dhowr bilood inta ay haddii bidkeeda leeyahay ay xilka hayaan xilli aynu durtaba maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay maxaa qabsoomay iyo aynu dhahno haddii bidkeeda leeyahay waa ku early laakiin inta ay ku yar yihiinba waxaan qabaa in haddii bidkeeda leeyahay wax tallaabo si macnaa leh ay ka dhaqaaqeen. waa tahay waxaad ka dhawaajisay reer maakhir haddii bidkeeda leeyahay horta waa ka duwan yihiin soomaalida kale ee aan ka hadlayo oo reer khaatumo iyo reer maakhir haddii bidkeeda leeyahay isku dooni bay saaran yihiin. waa degaan dadka degaa haddii bidkeeda leeyahay dhinacan galbeedkana ay sheegato somaliland ay sheegato dhinacan barigana ay puntland sheegato. sheegashadaa ay ku hayso muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay ay ku hayaan dowlad goboleedyadaasi baa iyadagana lagu hayaa marka isku dhib baanu nahay masiirka iyaguna runtii waa isku mid oo haddii alla kuusaba ogol yahay ama ha ahaato geographically sida maxay ahayd deegaanka wax looga wadaago ama ha ahaato maxay ahayd dhalasho iyo waxa laysu yahay ama ha ahaato aasaaskii muxuu ahaa dowladnimadii hore ee soomaaliyeed haddii bidkeeda leeyahay xisbigii ugu horreeyay United Somali Party la odhan jiray haddii alla kuusaba ogol yahay waqooyi midnimada soomaaliyeed uga ololeyn jiray oo deegaanka sool iyo sanaag iyo cayn iyo awdal muxuu ahaa beelaha dega ay ku midoobeen haddii alla kuusaba ogol yahay ha ahaade muxuu ahaa masiir baa la wada leeyahay wadahadalaanu muddaba noo socday haddii alla kuusaba ogol yahay waxgarad iyo dhalinyaro iyo muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay siyaasiyiin reer maakhira muxuu ahaa meel wanaagsan baan wax marinaynaa sidii labada maamul haddii bidkeeda leeyahay maxay ahayd loo mataaneyn lahaa loo walaaleyn lahaa haddii alla kuusaba ogol yahay isku mid looga dhigi lahaa baanu haddii bidkeeda leeyahay ka wada shaqaynaynaa biidni illahi alkariimna haddii bidkeeda leeyahay mar aan fogeyn haddii bidkeeda leeyahay warbaa kasoo bixi doona hagaagsan. waa tahay waxaanu rabaa haddii bidkeeda leeyahay intaan qodobka ka bixin inaan maxay ahaytay aan maxay ahaytay ku darsado oo awdal waad ogtihiin oo haddii bidkeeda leeyahay dee deegaanada iyaguna maxay ahaytay qolada somaliland ay xooga ku haysatay sheegato haddii bidkeeda leeyahay inay ka tirsan yihiin weeyaan laakiin waynu aragnay in muddo aba waynu ogeen oo dee dadka degani way diidanayeen hawshaa laakiin iminka marxalad bay soo gaadhay haddii alla kuusaba ogol yahay dadku ay codkoodii kor u qaadeen oo ay bilaabeen inay maxay ahayd si buuxda oo rasmiya haddii bidkeeda leeyahay heryadan gumaysiga weliba gumaysi dee dadku la magac sheeganaya inay iska tuuraan xornimadooda iyo inay haddii bidkeeda leeyahay kamid ahaanshaha ay soomaali ka mid yihiin inay kor ugu dhawaaqaan oo in afriiqa dambe ugu aadimin. maxay ahayd haddii alla kuusaba ogol yahay khaatumo way dhiiri gelinaysaa waana soo dhaweynaysaa wixii taageero ah maxay ahayd noocuu doonayaba ha ahaadee haddii bidkeeda leeyahay diyaar bay ula tahay inay u fidiso muxuu ahaa haddii alla kuusaba ogol yahay maamulka awda laftigiisa haddii alla kuusaba ogol yahay wixii aan ku taageeri karayno wax badan oo baa jirta haddii bidkeeda leeyahay layska kaashan karay wadahadal iyo nabad in xal lagu gaadhaa haddii bidkeeda leeyahay waa noo dan annaga anigu cidda haatan darro u arkaysa dee iyada cirka roobka laakiin haddii aanu maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay dhulka iyaga maxay ahayd nabad iyadoon cidi nagaga dhiman wiila nagaga dhiman iyo gabdhatoona aanu ku helayno falilaahi alxamdu. ninbaa waxaa la yidhi beri waxaa ku dhacday anigu ra'yigaygaan cabirayahay muxuu ahaa malaa tb iyo waxbaa ku dhacayo markaasuu qufacayo ama hindhisayo mid baa yidhi shifo oo wuxuu yihi mid kaloo ag fadhiya lagala quusayay iska daa. muxuu ahaa inkasta oo dee madaxweynuhu waxa uu xilka u hayaa inuu haddii bidkeeda leeyahay ay tahay inuu horumar iyo xasilooni iyo nabadgelyo maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay hawsha loogu dhiibtay haddii bidkeeda leeyahay intii ay ku suurtagelaysaba uu ku raadiyo weji nabadeed misana qolada horta lagala quusay oo 3 sano ee khaatuma jirtayba waa lahayn war nabad maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay aynu arrinkan ku dhamaysano dalkana iskaga baxa nabadan uu ku baaqayana maxay ahayd dee sida la dhageystaba ama dadka qaar dhageystaan
waad moodaa qaar inayan dhegaysan haddii midkeeda leeyahay dee way shuruudaysan tahay waxaa weeyaan nin madaxa lagaga hayo xabad hadal ma geli karo in wax loo yeedhiyo maahe de shuruudda ku xidhanina waa sidaa uu u cadeeyey annana aan horeyba u sheegaynay ahayd dalka kan iskaga baxa markaa waynu wada hadli karaa soomaalinimadaynu ka wada hadli karaa nabadgelyada iyo daris wanaag iyo ganacsi iyo mid walba oo inaga dhexeeyaynu ka wada hadli karaa wax badan oo dhiig iyo dhalasho iyo dhaqanba leh oo inaga dhexeeyaynu ka wada hadli karayna soo warad gartay maaha muxuu ahaa waxay la tahay sacaawd maxaa la odhan jiray maxay tahay caduur dhowdhowda uma dhacsana yelkadeedii de isaga hadalkiisay tahay iyo waajibkiisa inuu wixii nabad ku raadin karayo ku raadiyo wallahi kala boodkaasi maxay ahayd xagga iyaga kama iman xaggoodu ka yimid oo haddii midkeedii leeyahay wixii lagu ballamay oo maamulka puntland haddii midkeedii leeyahay madaxeeda u sarreeya ka socon waayo weeyaan intii aanu talix joogay anigu aanan xilka wareejin iyo intii aanu joognay saax dheer oo aanan weli xilka wareejinba dhowr munaasabadoodoo maxay ahaydtay lagu wada hadlo ayaan maxay ahaydtay suurtagelinay inaanu ka qayb qaadano oo intuba ay xaggooda ka suurtoogi waayeen hadday tahay qardho caleemasaarkii boqorka hadday tahay haddii alla kuusama ogol yahay beelo kamida ama beel kamida haddii midkeeda leeyahay beelaha puntland dego oo aanu maxay ahaydtay haddii alla kuusama ogol yahay bursaalax kula kulanay intubana ay ogaayeen oo aanu ka wada xidhiidhaynay maxay ahayd madaxweynaha dowlad goboleedka muxuu ahaa puntland uu saanshangareeyey ka qayb qaadashada laakiin isagu sidii laga rabay iyo muggii laga rabay mid walba markaanu nimi uu ka yeeli waayey muxuu ahaa laakiin dee ii sheegay waxaa intaaba ka daranay dee ka dambeeyey oo kale waxaa weeyaan haddii midkeeda leeyahay sheegashada tan la leeyahay dhulka kan aniga ale iyo dastuur baan haddii midkeeda leeyahay ay igu qoran tahay dastuurkana waynu ka wada warhaynaayo waxay rabaaniya ma aha waa heshiis dad ay wada galeen daddani ka dhaxaysa heshiis intay meel isugu yimaadeen ay wada galeen weeyaan dastuurku waa xeerkaa la samaystay xeerka la samaystayna haddii sidii loo samaystay ama wixii loo samaystay uu fulin waayo haddii midkeeda leeyahay de waa lagu kala baxayaa markaa wuxuu ahaa contract lagu kala baxay 2012 markii tilxa laysu tegey waxba ku noqon maayo asbaabaha oo dee dalkiibaaba qabsadan xeerka kani waxaan dastuurka kan uu leeyahay madaxweynuhu waaynu ka warhaynaa haddii midkeeda leeyahay dawaan la haystay dalka muddo 7 sannadoodaba haddii midkeeda leeyahay in loogu duceeyo kuwa haystaa inay sii haystaan maaha haddii alla kuusama ogolya isku day xitaa la isku dayay in maxay ahayd laga xoreeya afiya adinkay doontaba ha ahaadee ma jirin marka dadka kan mitaalo yaryar haddaan kuu soo qaado haddii midkeeda leeyahay horumarinta masalan dadka kan aad leedahay waa degaankayga oo anaa madaxweyne oo aad sheeganayso misena aad ka cunaqabataynayso haddii midka leeyahay waxoogaaga yar horumarinaha ama deeqaha usoo mara dekada usoo mara haddii midkeeda leeyahay aad iska hortaagayso inay gaadhaan degaankii marka haddii midkeeda leeyahay xagga iyaga waxba kama jabin xaggooday ka jabeen haddaan waxba dee tafaasiil maxay ahayd example isku 1,000 example baan lahayaa laakiin midun baan ku darsanayaa taasi aan kuu sheegaya dowladda khaatumo muxuu ahaa waxaa iminka u barnaamija sida aan kaga warhayo anaguna laftiga iyagu aanu dhiiri gelinay waxa weeyaan cidda lala xaajo waxaa jira dad ka tirsan dhalasho ahaan kasoo jeeda sooliya sanaag iyo cayn oo dowladda ka mid ah ama xukuumadda ha ahaatee ama baarlamaanka ha ahaatee ama dhaqanka ha ahaatee jooga wixii hadda ka dambeeya haddii midkeeda leeyahay sida wax muuqdaan cidda wax laga dhexaysaa ma ayan aha cabdiweli gaas iyo haddii midkeeda leeyahay dowladda puntland cidda wax laga dhexaysa waxaa weyn waa dadka deegaankan sooliya sanaag iyo cayn u dhashay ee halkaa jooga iyagun baanu wixii hadal ah haddii midkeeda leeyahay aanu haddii aan leedno mustaqbalka aan qabaa in lala yeelan doono marka waxaad leedahay dadka deegaanada u dhashay ee puntland xilalka ka haya waa la hadlayna ha waa dowladdana way ugu jirtaa barnaamijkeeda maxay ahayd haddii midkeeda leeyahay waan qabaana in maxay ahayd oo sidaan markii horeba kuu sheegay way ku jirtaa qodobada 4 qodob maxay ahayd haddii midkeeda leeyahay ugu culculus maxay ahayd dowladda ku shaqayn doonto
in national commission loo guddi qaran loo saaro haddii bidkeedi leeyahay maxay tahay dadweynaha deegaanka ka tirsan maamulada kala jira sidii haddii bidkeedi xiriir loola yeelan lahaa waan filayaa inay dhaqso u suurtageli doonto haddii alla waliyo Soomaaliya inay wada hadashaa maxay ahayd anigu waxaan qabaa in ay fiican tahay oo qolada maamulka Hargeysa in ay in la wada hadlo oo wixii tabasho iyo cabasho ay sheeganayaan laga dhageysto haddii bidkeedi leeyahay la isna meel dhigo ilaa meel unba wada hadalkan u socdaay sidii Soomaali weyn qaranimada Soomaaliyeed ay u jiri lahayd waxaan qabaa in la xoojiyo la dardar geliyo waa ay la quman tahay muxuu ahaa in muddo hakad baa galay waynu ka warhaynaa hakadkuna wuxuu ku galiyay waynu ka warhaynaa iyadana oo waxa weeyaan maxay ahayd madax adayga ay ku madax adeegayeen qolada tani maxay ahayd hadii bigeliya mawduuca kan muxuu ahaa anaga Somaliland baa la yiraahdaa waxay tahay in sida aan ka arkay imka in arrimaha guud loo hoos loogu daadegi doono meesha ay wax ka khariban yihiin waxa weeyaan muxuu ahaa waxaan mesela ku arkay qodob ah haddii bidkeeda leeyahay soo jeedinay ay isku qaatay isla raaceen la in wada hadallada laga qayb geliyo muxuu ahaa duwalka saaxiibka la Soomaaliya saaxiibka la tahay muxuu ahaa waxa aniga taa igala quman inta la leeyahay dawladaha duwalka saaxiibka la xagaasana la eegayo dadkii masiirkooda laga hadlayay maxay ahayd mawduucan khuseeyay maxay ahayd Soomaalida ahaa baan sidii ay u wada hadli lahaayeen halka laga wada hadli lahaayeen iyagu aan maxay ahayd looga wada qaybsiinin oo muxuu ahaa haddii alla kuu samo ogol yahay dee taasaa ka horeysa bal inta maxay ahayd haddii bidkeeli dad kale lagu yeedhayo oo shisheeye waxaan oran lahaa dowladda federaalka haddii bidkeeli eedaana leh cid kale ma laha haddii alla kuu samo ogol yahay dowladda federaalka inay maxay ahayd cirkani eegaysa intay iska dayso haddii alla kuu samo ogol yahay qolada Hargeysa kamid ahaanshaheedii kamid ahaansho la-aanteeda ay Soomaaliya kamid ahaadaan wada hadallo Turkiga iyo Djibouti iyo maxay ahayd London lagu sameeyo kuma suurtoobayaan waxay ku suurtoobayaan ama ku suurtogeli waayaan haddii bidkeeda leeyahay garoonka Laascaanood iyo hareerihiisa deegaanka Khaatumo iyo sida ay wax u dhacaan haddii la wada hadlayo wada hadalka anigu ma diidanin haddii bidkeeda ka qayb qaadashadooda inay ka mudan tahay ka qayb qaateen maxay ahayd haddii bidkeeda leeyahay dawladda aynu saaxiib la nahay iyo wax noocaas balse idinku waxaad tirahdeen Somaliland mani meeshan waxa laga wada hadlayaa waa Somaliland iyo dawladda dhexe Soomaaliyeed baa wada hadlaya marka waxaad leedahay deegaanada iyada ku jira kuwa Somaliland ay sheeganayso kuwa ay sheeganayso haddii bidkeeda leeyahay muxuu ahaa degaankii ama xuduudii beriga hore Ingiriisku Ingiriisku isku haystay weeyaan waxa ay ka hadlayaan qolada reer Hargeysa haddii alla ku samo ogol yahay marka de markaana wuu ku jirtaa deegaanka Khaatumo wuu ku jirayaa markaad sidaa u dhigto kaba mid aha oo waaqac jiro oo daweyn loo ognahay oo maamul baa ka jira Soomaaliya sanaag iyo in leeyahay Khaatumo haddii bidkeeda leeyahay iyagu ay og yihiin oo dawladda federaalka ay og tahay oo international community laftigiisa og yahay laakiin de maxay ahayd waxay doodooda ku saleysan caynka ayaga ku saleysan marka haddii waxa laga hadlayaa waxaan ay u sheeganayaan deegaanka ka Khaatumana waxa weeye hadday u suurto gasho dee Khaatumo inay kamid ahaato maxay ahayd maamulkooda kan waxay leeyihiin waa la go-aynaayo waxay tahay khadku halkaas Talyaani iyo Ingiriis buu kala go-aya haddii si ay u suurtageli weydo haddii la ku samo ogol yahay dee kamid siyaabo badan oo kale ku khasbanaanaya oo saddex geesoodka Berberiya Hargeysa iyo Burco haddii yiraahdaan waa inta waa la go-aynaa waa issue taagan oo intaynu Soomaalideena kale isugu tagno hareeraha qabanayno warkaale walaalihiina ka taginay laakiin iyagu wada meel ay la aadayaan haddii bidkeeli triangle-ka la aadayaanba ma jirtee waxa weeye inta laga raadinayo wada hadallo aan maxay ahayd far badan oo aniga ii muuqatay inay macna badan sameynaynin hadda iyadoo aan dhinac ka dhiiri gelinayo waliba in la wada hadlo misana meesha ay wax ku kala go-ayaan ama wax iskaga oolayaan waa haddii bidkeeda leeyahay dawladda federaalka sida ay Khaatumo ka yeesho waa tahay arrinta haddaynu intaa kaga gudbino waxaa jira dawladda Soomaaliya xagga siyaasadda arrimo iska bedelay ra'iisul wasaarihii hore Soomaaliya waa la bedelay oo baarlamaanka mooshin ka keenay kadibna kalsoonida kala noqday ra'iisul wasaare cusub ninka la yiraahdo Cabdirashiid
cumar cabdishiid cali sharmaarke ayaa la magacaabay maamulkiinu seebuu arkaa khaatuma ahaan iyo aragtidaada maxamed yuusuf jaamac muxuu ahaa anigu imika waxaan cabiri karaa haddii midkay leeyahay waa aragtina aan ka qabataa cumar cabdirashiid dee waa ra-iisal wasaare la magacaabay waxay la tahay maalinka salaasidaa la horgeynaya baarlamanka oo haddii alla kuusan ogol yahay muxuu ahaa kalsooni looga raadinaya maxay ahayd wixii aan ka odhan lahaaba dib baan u dhiganayaa iyada xadiidkeeda leeyahay isaga magacaabistiisa laakiin haddaan munaasabadan uga faa'iidaysto niyo guuldarro badan baa muuqato oo muxuu ahaa iminka in muddo ah faro badan ba hadibkeeda dowladda ku meel gaadha inuu lahayno waxa ku meel gaadhka loo lahaa tanna iminka jirtana ku meel gaadhka looga bixiyey waxa weeyaan in wixii hore ku meel gaadhka ahay isqabqabsiga ahay in loo tababaro dadka kan inay mid ku meel gaadh ahoo rasmi oo shaqayso oo kalsooni dadka wada shaqeynaya ay ka dhex abuuran tahay ayay ahayd waxaad si moodaa dee ka daroo dibi dhal in xaalkeenu uu noqday oo mararka qaarkood honest to God haddaad dib usii eegto kuwii ku meel gaadhka ahaa inay qaarkood hadibkeeda leeyahay ay dhaamaan waxa aan arkayna waxa weeyaan oo anigu aan eedda inteeda badan saaraya qurbajoogta soomaaliyeed dowladda federaalka eeg markii burburku dhacay haddii bikeliya waxaa la islahaa ummadii Soomaaliyeed waxaa ku dhacay brain drain waxaan la yiraahdo intii wax garanaysay caruurtoodii bay la soo baxday caalamka intiisa kale ku soo fideen halkaas caruurtoodii iskuul ku geysteen marka waxa isku hadhay in qori xabadii waxa ka soo baxa haddii bikeliya leeyahay noloshoodana ku raadiya aqligoodana uu qoriga ku jiro survival of the fittest sharciga baa ka shaqeeyay waxaa la islahaa dee kuwa markay caruurahoodii soo dejisteen iyo maxastoodii meel qabow oo hagaagsan geysteen ay iskuul u fursadeen intay kusoo noqdaan dalkii wax ka qaban lahaayeen maxay tahay caqliga u noqon lahaayeen hoggaanka u noqon lahaayeen nidaamka yaqaanay sida uu u shaqeeya kii dib u soo noqdaaba inuu meelu ka shaqaysto ay noqoto haddaad eegto baarlamanka haddaad eegto golaha wasiirada intooda badan haddii midkeeda leeyahay overwhelming majority-gu waxa weeyaan waa qurbajoog weeyaan nin walibana waa u shaqo tagaa nin subax kaliya u jarmaada Soomaali u shaqeeyo danaheeda haddii midkeeda leeyahay u jarmaad ma jiro muxuu ahaa inta halkan joogtaana markii ay qabowsadeen maxay ahayd ninka Soomaaliyeed gudaha jooga biilkiisiiba aan haynin haddii alla ku sameeyo golay inta badan wuxuu ka fikirayaa biilkiisa sidoo uu helay u raadinayo ka halkan joogay biilkiisa helay caruurtiisana iskuulka u aaday haddii midkeeda leeyahay guri qaboon reerkiisa ugu jiraa intay muqaada fadhiistaan oo waxaan fadhi ku dirirka leeyahay loo kala bixiyay un baa reer hebel iyo reer hebel waxa aan ku arkay iminka inta North America joogay waxa weeyaan qabyaaladda meesha ay ugu maxay ahayd macnaha badan tahay ee ugu qiimo badan tahay ee ugu xoog badan tahay haddii midkeeda leeyahay waa qurbaha kan haddii midkeeda leeyahay khaladka wali ma arag laba qof oo inta aan wareegay isweydiinaya mashkalada dawladeenu haysato haddii midkeeda leeyahay maxay tahay waxa aan dadka aan arkay inta waxa laga hadlayaa waxa weeye war maxaa haddii ama xasan iyo yemeen raacna oo kala saf weeyaan iyo haddii midkeeda leeyahay prime minister haddii aan abuurmi lahayd oo halkan ka abuurmi lahaa jawi dadka kan haddii midkeeda leeyahay qurba joogta inay danaynayaan oo sense of nationalism wadaniyada ay ku jirto ay leeyihiin waxaa soo bixi lahaa hadal kacdoon haddii midkeeda leeyahay pressure groups ka hadla oo caalamka haddii midkeeda leeyahay la hadla oo dowladda federaalka la hadla haddii alla ku sameeyo sida waxaan looga baxayo maxay ahayd laakiin haddaynu waxaynuba ay ahaanayaan haddii midkeeda leeyahay sanad markaad joogtaba haddii midkeeda leeyahay muxuu ahaa in dowlad cusub la abuuro sanadna dee waa intii uu maxay ahayd askarigu gaarday ku baranayay hore socod dib u socod iyo midig jeeso bidix jeegso هذا دي سومالنimo soconaysa iyo barnaamij shaqeynaya iyo dawlad hagaagsan oo macnaheedu waxay ahayd ama shabaab hala dagaalanta ama haddii midkeeda leeyahay horumarka dalka u raadisay de shaqeynaysa ma jirto intaana waxa weeye nin waliba markii imka la magacaabo kii wasiir la magacaabo kii barnaamij minister la magacaabo de haddii uu gadaashiisa ka baqayo leeyahay berri ka maalin haddii midkeeda leeyahay maxaad qabatay lagugu record gareyn maayo waa lagu fire gareynaya nin waliba de sidee baad maalmaha jeebkaaga u bixisata oo wuxuu u joogaa meesha xil waan u hayaa maxay ahayd khaatimo imka oo waxa madaxda khaatuma ii igmatay inaan wakiil khaasa uga noqdo muqdisho
dowladda federaalka iyo international community-gaba haddii alla kuu sama ogoliyo uga wakiil khaatumo. halkaa markaan tago xafiis baanu ka samayn doonaa haddii alla idmo markaan iminka noqdo socdaalkaygan dhamaysto aqoon-yahano iyo anigu aanu haddii bidkeeda isugu nimaadno ka shaqeyno haddii bidkeeda wax fara badan baa 3 sanana nagaga lumay iminkana inay dib nooga luman aanan diyaar u hayno inaanu international community iyo dowladda federaalka aba ka raadino ay maxay ahayd ay ku beegan tahay mustaqbalkayga siyaasiga ah haddii bidkeeda leeyahay niyow bahashu mar haddaad lugaha la soo gasho haddii alla kuu sama ogol yahay haddii bidkeeda leeyahay waaba iska adagtahayba sida lugaha loogala baxaa. inkasta oo maxay ahaydtay anigu maxamed ahaan aanan dadka maxay ahaydtay haddii wax markaa loo igmado oo sifa hagaagsan oo dimuqraadiya looga kaxeeyo ku dhegan aan ahayn misana kolleyba dee waa jira hindise ii gaaro oo kale oo haddii bidkeeda leeyahay siyaasi oo aan leeyahay waxba hadda halkan ka 1 iyo 2 iyo 3 ka oran aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa madaxweynihii hore maamulka Khaatumo mudane Maxamed Yuusuf Jaamac Indhashaal.